wariyaasha dhibaatada loo geysto oo garaaca iyo jirdilka iyo xadgudubka lagu geysto oo booliiska iyo ciidamada amniga ee kala duwan ay ku sameeyaan dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxay u sameeyaan jid iyo waddo ay ugu marmarsiyoonayaan in cadaaladda aan la marsiinin dadka wariyaasha dhibaateeya waxaan rabaa inaan halkan ka xuso nin la yidhaahdo Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caadaystay inuu hor istaago cadaaladda caadaystay inuu hanjabaado iyo handadaad kala duwan isagoo ka faa'iideysanaya awoodda xafiiska madaxweynaha u diro suxufiyiinta qaybahooda kala duwan ee ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan caadaystay inuu awoodda dhibanayaasha aan fahamsanayn sharciga uga faa'iideysto fahamsanaan la'aanta ay sharcigu fahamsanayn mar walbana wuxuu hor istaagaa in cadaalad la marsiiyo dadka ee dila ama dhibaatada u geysta suxufiyiinta aan ku dalbanaynay in xaaladda warbaahinta Soomaaliya ee ciriiriga gashay wax laga bedelo ilaa iyo waqtigan aan idin hadlayno 15 maalmood waan aamusnayn waxaan sugaynay in isbedel u yimaado laakiin haba yaraatee wax isbedelay ma jiraan tusaale ahaan waxaa xirnaa wariye maxamed cabdiwahaab abuuja oo la xiray muddo 7 cisho ka hor maalintaas way dhaweyd ka horna waa ka hadalnay laakiin waxaa nasiib darro ah ilaa iyo waqtigan maanta aan hadlayno in abuuja uusan helin wax sharci ah wax cadaalada uusan helin marka laga reebo warqad yar oo 2 baaragraaf ku qoran tahay wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo la leeyahay ninkan waxaan ku eedeynaynaa shabaab ninkan waa la yaqaanaa wariye u ahaa idaacada kala duwan oo ka shaqeynayay ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay ma laha marka waxaan la yaabanahay sababta sharciga loo baalmaraayo madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer oo maaragtay aan iraahdo wuxuu aad twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin laga shaqeyn doono in dib loo habeeyo inaan wariyaasha maaragtay aan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed goor habeen ah isagoo maraayo suuqa cooska ee degmada Shibis ayaa waxa uu la kulmay baabuur kaarib ah shakiya galay baabuurkii uu dhinac uga baxay nalkii loo daaray waa la damiyay waa laga soo daba kiciyay waa orday xabadii ku tuureen dhagaxaan meesha uu dardaray lugu ka jabay dhagaxaantaas lugaha uga jiray kulli sababtooda iyaga iskale oo xabad ay ku gameen ciidanka sidaas sameynayna waa ciidanka nisa ee degmada Shibis shakhsiyaad kamida waaye habeenkii waa xireen waa u soo sheegay wuxuu weydiiyay marka hore idinka yaa tihiin xageesi iyo wadiin aniga xaafadan deganahay waa ku dhashay marka waa ka biyo diideen in ay markaas deeyaan qoriyo ku qabteen basolada ku qabteen baabuurka qasab ku saareen saldhig ku yaal Shibis ay geeyeen 8 saaxiibeen niman ka war helnay sidaan telefoon u direen waa daalnay waa dhaca wax qabahay male ugu dambeyn waxaan ka war helnay in uu ku xirnaa saldhigga ee degmada Shibis waa tagnay ciidanka booliska waa ugu soo wareejiyeen 8 saaxiibeen niman ka soo wadnay habeenkaas waaga markuu bariyina dhacdadii iyo xadgudubka lagu sameeyo wax ka qoray subaxdii 2 habeen 3 habeen ka soo wareegatay waa la wacay ciidanka nisa ee degmada Shibis ayaa u yeeray waliba iyagoo u soo maray wiil adeer aanu ahay oo meesha ka dhow waxay yireen waa in degdeg uu xafiiska nisa ee Shibis ku yimaada yarkii soo wargeliyay waa wada xaq uu geeyay marka ugu dambeyntii godka markii ay wada tageen kadib jaaniska yaraa oo telefoonka uu haystay anuga waa ka faa'iideystay wuxuu yiri aabba waxa la soconaysaa hawlay qoladan waxay ugu hanjabeen maanta in ay soo afjari doonaan isla markaana ay qoortii geli doonaan kiis gabar hore loo dilay intaas uu sheegay marka aabba la socod yiri laakiin ilaahay joogu yiri aabba waa codkiisa way laakiin aabba ilaahay wax ka weyn ma lahu yiri laakiin ogow in sidaas ay ragaan ay ka shaqeeyeen marka waxa waaye runtii waxyaabaha runtii wariyaasha lagu hayo qaas ahaan wax badan waaye waa dunuub badan la galaa marka qisooyinka horta sidaas ay u badan yihiin